السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدن يا الكسو هذا وروحي دلك يدي بدا بينك سو غادي قضبدا كلا دوان وركيغا waxa kamida kumanaan qof ayaa saaka si baaxad looga qayb qaatay socodka nabadda oo ah markii sagaalaad ee lagu qabto gobolka Carta Ruushka ayaa sheegay in cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha uu ku soo rogayo wadanka Turkiga intaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu weyneed imikana ku soo dhawaada isagoo oo dhan socodka nabadda ee Africa Peace Walk ayaa saaka ka dhacay gobolka Carta halkaas oo kumanaan qof saaka ay ka qayb galeen qabanqaabada socodkaasi waxaa iska leh xoghaynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha socodka nabadda ee saaka oo ah munaasabad sanadla ayaa waxa la bilaabay sanadku markuu ahaa 2008 ujeedada ka dambaysa ayaa ah mudnaanta iyo horumarinta la siinayo guud ahaan nabadda waxaa ka qayb qaatay oo ka dhex muuqday socodkaasi ballaaran xubno ka tirsan xukuumadda sida xogayo dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul wasiirka miisaaniyadda Booda Axmed Roobe mas'uuliyiinta gobolka sida prefega gobolka Carta Cabdilaahi Dharaar Cokiye mudanayaasha baarlamaanka sida gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed socodkaasi ballaaran dadweynaha reer Djibouti ayaa aad u xiiseeya waxaana sanad walba si tiro badan uga qayb qaataan socodkaasi oo lagu maamuso nabadda waxaa ka qayb qaatay sanadkan 7500 oo qof sida ay sheegtay xoghaynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha prefega gobolka Carta mudane Cabdilaahi Dharaar Cokiye oo inaga waramay qabanqaabada iyo sida uu saaka uga dhacay socodkaasi gobolka Carta ayaa waxa uu sheegay in sidii ugu habooneed uu socodkaasi uga qabsoomay goobta loogu talagalay in socodkaasi saaka laga dhaqaajiyo saaka waxaan u dareeray raadooනේ beetasarkii waan u dareeray alxamdulillah jooguna aad buu qurux badan yahay dhulka waa magaranaysaa waa maxaa ahayd roobaba weeyaan kolkaas socodkii saaka waxaan bilownay meelaha 8 baan bilownay si fiican buu orodku maxaa ahayd ayuu socodku u socdaa alxamdulillah waxaan ku magaranaysaa taqriiban waxay dadku noqon karayaan magaranaysaa ka soo qayb galay si baaxad weyn baa looga soo qayb galay ilaa 3500 ilaa 4000 way gaarayaan dadkuna maxaa ahayd si fiican bay socodka ayay u tartiibinayaan ay u socdaan amnigii uu joogaa maxaa ahayd askartii maxaa ahayd qoladii kale ee magaranaysa ayakuna caafimaadka oo haddii uu qof meelaha wax ku noqdo magaranaysa sidii loo daweyn lahaa ambulansyadii baa jooga magaranaysa baaburadii kale ee maxaa ahayd pompiyeega jooga kolka alxamdulillah socodku saaka si fiican buu noogu dhacay ilaahay baan ku mahadinaynaa magaranaysa dhulkuna aad buu u qabow yahay xogayo dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul oo isaguna wax ka weydiinay socodka nabadda ee saaka ka dhacay Carta ayaa ugu horeyn tilmaamay qiimaha uu ku fadhiyo socodkaasi waxa uu ka waramay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan qabanqaabada socodka Africa Peace Walk oo ah kii sagaalaad buu yiri waxa ku maamusnaa buu yiri nabadda iyo dareenka kalgacal ee aan u qabno nabadda waxa uu sheegay inuu u dhacay socodku sidii ugu habooneed waxaan ka dhignay buu yiri taraajiye kaliya socodka waxaan u mahad celinayaa dhammaan wasaaradaha inagala qayb qaatay hirgelinta iyo qabsoomida socodka haday noqoto wasaaradda gaashaandhigga arrimaha gudaha caafimaadka iyo waliba prefecturka Carta iyo dhammaan shaqaalaha xoghaynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha intaasi kadib waxaan weydiinay dareenkooga dadweynaha ka soo qayb qaatay socodkaasi waxaan inaga warameen dareenkooga ku lug leh ka qayb qaadashadooda socodkaasi sanad laha waxaana kamid ah hadalladooda sidad waa socodkii nabadda ilaahay noo adkeeyo nabadda wax ka caana macaan ma jirto waxaad arkaysaa ummadii oo dhan oo wada socoto waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada iyo gabdhaha yaryar ee ka soo qayb galay maanta waa maalin weyn oo farxada weeyaan wasaaradda soo qabanqaabisana waan hambaleynayaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee ku shaqale iyo wixii soo qabanqaabiyeyba alxamdulillah waxaan joognaa maanta waan ka qayb galaynaa oo ka soconaa waxa weyn rondooneegii oo ah markii si sagaalaad
oo maanta u dhacay si aad joog qurux badan oo ciiradu ay nadu joogto iyo roobku oo waxa ilaahay lagu mahadiyo imaka socodkuna bartanka ayaan soconaa wali arveegi ma joogin dhalinyartana aad bay u badan tahay way meel kasta ay ka timid Djibouti masiirkana dhinac kasta waan ka qaadanay xagga security xagga dhakhtareed ciidanku meel bannaga ma maqno waxaan rajaynayaa ilaahay si nabad ah inuu noogu dhameeyo wabilaad markii ugu horeysay la qabtana ma socodkan sanadkii mar baa la qabtaa sanadkii wallahi waxaan dhowr jeer ka qayb galnay maanta shucuur weyn baa maanta igu soo beematay bacdama ay tahay xuskiisana guuraha madaxweynaha dalka alxaaji Ismaaciil Cumar Geelle taas shucuur gaar ah ay tahay ugu dhalisay anoo xuski madaxweynaha igu soo beemay iyo socodkii carta aan arkayo dadka malaayinta qof meeshaas ku timiday wallahi farxad iyo jawigu macaan yahay maanta aad ma madaxweynaha u salaamaya waxaan ka leeyahay sanad guuro wanaagsan munaasabada qaybinta lacagaha kafaalad qaadka ubadka agoomaha ee hay'adda diiwaan al-zakaad ayaa saaka ka qabsoontay dugsiga al-xikma ee ku yaal magaalada madaxda munaasabadaasi ayaa mid hay'adda diiwaan al-zakaad ay qaban qaabiso sanad walba sanadkan lacagaha kafaalad qaadkaasi waxaa ka faa'iideystay ubad tiradoodu ay dhan tahay 123 agoomaha munaasabadaasi waxaa gudoomiyay mas'uulka u qaabilsan hay'adda kafaalad qaadka agoomaha mudane aadan xuseen aadan waxaana u joogay ku-xigeenkiisa Khalid Maxamed waxaana iyaguna u joogay ubadka agoomaha iyo cidii mas'uulka ka ah waxaa wareysyo la yeelanay mas'uuliyiinta diiwaan al-zakaad iyaguna qaabilsan kafaalad qaadka agoomaha waxaana kamid ah hadaladoodii waxaan rag u mahad celinaynaa ilmada maartaas walaha anaga aqoontiya gargaarka na garab jooga halkan uu keenay maartaas lacagta uu keenay in gargaaraya halkan u mahad celinaynaa waxaan qaybinaynaa aqoontii shaariqa ay u soo dirtay lacagta aqoonta tiradu tahay 123 aqoona oo waa markii labaad marka waxay soo direen sanad lacagtoodii marka sidaa baan maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 2015 ugu qaybinaynaa aqoontii ay shaariqa lacagta u soo dirtay waa kolka aqoontu way kala duwan yihiin in baa jirta shaariqa ay lacag siiso in baa jirta Djibouti dawladda Djibouti ay siiso in baa jirta Kuwait ay siiso marka intan maanta aan siinayno waa intii ay shaariqa lacagta u soo dirtay tartanka ciyaaraha ee isreebreebka heerka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalalka xubinta ka jaamacadda carabta ee uu qaban qaabiyo telefishinka Al Jazeera ayaa shalay ka furmay garoonka guuleed ciyaarahaasi oo ahaa qaybta muhiimka ama yaryarka ayaa waxa dhaqaajiyay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haarun Cumar Aadan ciyaarahan ayaa iyagu ah kuwa ay ka qayb qaadanayaan wadamada jaamacadda carabta jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii ugu horeysay ka qayb galaysa waxa uu ka qayb galaya dhalinyaro ku jira dugsiyada dhexe tartankan ka furmay garoonka guuleed ayaa waxa ka qayb qaadanaya 8 dugsi oo ka kala socda magaala madaxda iyo gobolada dalka gudihiisa waxaana uu soconayaa muddo 3 maalmood ah ekiibka imikana wadankeena waxa weeyaan waa 8 school college ba ka qayb galaya oo kamid yihiin regional waxa ku jira carta 8 tablisma markay imika wada ciyaaraan maanta waxa ciyaaraya afar ekiib ciyaarsa afarta ekiib laba ka soo baxaysa labadaasi bari way ciyaar doonaan hadii la yiraahdo marka finaalka waxa la ciyaari doonaa maalinta isniinta geliga dambe 4 saacadood markay tahay marka ekiibka noqda college-ka noqda badiya horyaalkaasi wuxuu ka qayb gali doonaa ciyaaraha ka dhici doona February magaalada Doha oo ay sugu iman doonaan san hore u sheegay 16 wadan oo wadanada carabta ah mas'uulka ciyaaraha ee wasaaradda waxbarashada Buuxa xarunta Caribbean ayaa waxa ka socda tababar ku saabsan dib u habeynta waxbarashada farsamada iyo xirfadaha oo isagu socday muddo 7 ah waxa aqoontiisa ka bixinaya khabiir caalami ah oo lagu magacaabo Jean Labous oo ah kormeeraha akademiga xisaabta sayniska iyo waxbarashada farsamada iyo xirfadaha tababarkaasi oo bilaabtay maalinta Sabtidii aan soo dhaafnay waxa uu joogay mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxa maray ka hadleen furitaanka aqoon kororsigaasi tababarka waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta ahmiyadda tababarkan uu xambaarsan yahay oo ka caawinaya dib u habeynta shahaadada baccalaureate tababarkaasi ayaa ka kooban 2 qaybood oo qaybta koowaad ay ku saabsanayd maadooyinka kala ah génie civil génie electric mechanic iyo wixii la halmaala qaybta labaad ee tababarkaas ayaa ahaa mid loogu talagalay dhammaan barayaasha xisaabta iyo fiisiga ee waaxda xirfadaha iyo la taliyayaasha waxbarasho ee maadooyinka xisaabta iyo fiisiga
tababarkan ayaa ah mid kordhinaya heerka macluumaadka iyo dhiirigelinta ee arrimaha kala duwan ee la xidhiidha farsamada dib u habeynta cusub ee waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha. ka qaybgalayaashii tababarkaasi ayaa soo dhaweeyey habka wanaagsan iyo tayada heerka sare ee tababarkaasi waxaana ay u mahadceliyeen khabiirka kasoo qayb qaatay. xarunta iskaashatada beeraleyda ee mulid ee gobolka dakhil ayaa shalay lagu qabtay munaasabada lagu qaybinayay qalabka beeraha. barnaamijkan qalab u qaybinta ayaa waxaa la xidhiidha hirgelinta howlgalada labaad ee mashruuca xoojinta awoodda wax soo saarka iskaashatada ee uu maalgeliyey midooda reer Yurub, waxaana barnaamijkan hirgeliyey ururkan dowliga ahayn ee nabadda iyo kaanu oo la kaashaday Action contre la faim iyo wasaaradda beeraha. qalabkan loo qaybshay iskaashatada beeraleyda ayaa ah mid lagu doonayo in lagu kordhiyo wax soo saarka beeraleydaasi si loo gaaro natiijooyinka laga sugayo mashruuca. qalabkan loo qaybshay 28 beeraleydaasi kamid ah ayaa ka kooban qasaabka beeraha ee biyaha gaarsiinaya iyo haamaha lagu kaydiyo biyaha, waxaana tababar loo fidin doonaa iskaashatadaasi beeraleyda oo ku saabsan dib u habeynta dhulkooda dhinaca farsamada, waxaana tababarkaasi ugu fidin doonaa tababarayaal qaran oo aqoon u leh waxdaasi. munaasabadaasi qalab u qaybinta waxaa u jeeda brife ku-xigeenka gobolka dakhil, agaasimaha ururka nabadda iyo kaanu xasan khayre iyo xubnaha ururkaasi iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolkaasi aadan dharaar iyo iskaashatada beeraleyda ee mulid. waxaa intaasi kadib aan waraysiyo la yeelanay dadkii ka faa'iideystay qalabkaasi oo mahadnaq ballaadhan u soo jeediyay ururka nabadda iyo kaanu oo ku caawiyay qalabkan, waxaana kamid ah hadaladooda. maaragtay alaab beeraleyda mulid la soo gaarsiiyey, alaabtaas oo guta caagadaha biyaha lagu riday oo 28 xabadood oo bahlada guta iyo qalabkoogiis wada ayaan maanta ugu gudoonay cooperative mulud. ururkan PLA wadalkiisuna waa urur wax qabad leh inay anfacaan dadka oo waxyaalo badan ay dhulka gaarsiin karaan oo shaqayn karaan xoogooda ku darsan karaan. marka anagu waxaan leenahay PLA waa urur meel kasta gaadhay, noorka siidka meel kasta gaadho maanta wax qabadkoodu muuqdaan. fiican mulud waxaan leeyahay ururkan waan hambalyeynaya inay maaragtay ay sii wadi karaan dadaalkooga ee maaragtay kala go'aan lahayn. waxaan rajaynaynaa inay maaragtay dhulka wada gaaraan insha Allah. waxaan joognaa maanta waa mulud, annagu waa ururka nabadda iyo caano. waxaan u keenay beeraleyda cooperative-ka mulud oo ka kooban 28 beero. waxaan u keenay 28 reservoir iyo tilmooyinka guuta. taasi waxay la xidhiidhaa ballankii aan qaadnay March 2015 annagu halkan ku furnay mashruucan inaan ku taageerno beeraleyda mulud. jiibaan maanta ballankii fulinay iyo walaahay waxaan leenahay naga guddooma gargaarka la taani keenay. magacayga waxaa la yidhaha Saciido Faarax Kawaaliye, waxaan ka mid ahay cooperative de mulud. komiteegaanoo ku jira waxaan maanta mahad u jeedinayaa horta ururka PLA dadaalka iyo ay noo soo gashay, dariiqa dheer ay noo soo martay, haliyada ay noo keentay anoo marnaba ilaawi karin. waxaa leeyahay magan Allah iyo magan Qur'aan doone guudka booyadiyo la socda. waxaan leenahay anagu waxaan ka filayno beeraha iyaga siday mustaqbalkayga sare ugu soo qaadi lahayd guudku. inta badanna dadaal intii ay hoos u jiifta beeruhu imikana de markay guudka bay ku meel maraan marka la yiri beeruhu ay ku saro kacaan geedaha kubciya. waxaan leenahay anagu guudka magan Allah ka leenahay. inta badanna waan ka sugaynaa, intii yareedna waa kuwa noo keenay. imikana xagga iyo jawiga iyo cimilada roobab wata naacow qabow iyo saxan udgoon ayaa ka da'ay dalka, waxayna qayb ka yihiin tilmaamayaan xilliga jiilaalka oo imika aan ku jirno. dadweynaha ayaa aada u soo dhaweeyey kuna diirsaday roobabkaasi, gaar ahaan dadka reer miyiga iyo dunyadooda oo aada ugu reeyay roobabkaasi kadib abaaro ku habsaday xilliyadii ugu dambeeyay. magaalo madaxda Djibouti roobabkaasi si weyn ayay uga da'een iyaga oo meelaha qaarna wadooyinka biyo dhigay. anagoo ku jirna waqtiga jilaalka dadweynaha waxaa laga wargelinayaa in ay si weyn uga foojignaadaan waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka caafimaad marka lagu jiro xiliyadani roobabka ah oo ay dhashaan kanaaco, daqsi iyo waxyaabo kale oo keeni kara xanuuno. xagga wararka caalamka waxaan idinka haynaa ruushka ayaa sheegay in cunaqabatayn dhanka dhaqaalaha uu kusoo rogayo dalka Turkiga kadib diyaaradii dagaalka ee ruushka uu lahaa ee Turkigu soo riday. ra-iisul wasaaraha dalka ruushka Dmitry Medvedev ayaa ku dhawaaqay
ama ku dhaqaaqay tallaabooyin adag oo sheegaya in dhammaan dhinacyada ay wadaagaan labada dal ee xagga ganacsiga, gaadiidka iyo dalxiiska ay joojin doonaan. sidoo kale waxa uu ku daray intaasi in ay joojinayaan mashaariicda maalgashiga ee dalka Turkiga ay la galeen. geestiisa madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in marnaba uu aqbali doonin in raaligelin ay ka bixiyaan waxa uu ugu yeedhay kuwa kusoo xadgudbay hawada dalka Turkiga. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isaguna sheegay in ay Ruushka ugu yeerayo miiska wadahadalada si xal looga gaaro xurguftaasi dhex martay labada wadan. ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa u soo bandhigay baarlamaanka dalkaasi dood ku saabsan in dalka Britain uu qaado duqeyn xagga cirka ah oo ka dhan ah xagjirinta kooxda dowladda Islaamiga ee Daesh. waxa uu sheegay in ay khalad tahay in Britain ay gacan ka geysan isbahaysiga lagula dagaalamayo kooxdaasi oo farqul ku haya ammaanka dunida, waxaana Britain ka qayb qaadan doontaa doorka ay ku leedahay arrimahaasi. gees kale diyaaradaha dagaalka ee Britain ayaa duqeymo ka fuliyay dalka Iraq, waxaana tallaabadani ay Britain ku macnaysay in wax walba ay ku horumarinayso danta qaran. qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee dalka Britain ayaa si aad ah walaac uga muujiyay qorshahan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare David Cameron. shirweynaha cimilada ee COP21 ayaa magaalada Bari ka furmaya maalinta Axadda ee 29 bishan. ergoyn 195 dal ayaa ka qayb qaadan doona, waxaana lagu lafaguri doona wax ka qabashada sugan oo lagu yareynayo isbedelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee sababteeda loo tirinayo wadamada leh warshadaha waaweyn. shirweynahaasi oo ah mid qaramada midoobay soo qaban qaabisay ayaa waxaa loogu talagalay in ay kasoo baxaan go'aano rasmi ah oo wax ku ool ah oo xal u noqda dhibaatooyinka ka dhashay isbedelka cimilada. waxay sheegtay qaramada midoobay in 2015 uu yahay sanadka ugu kulaylka badan ee abid ahaan soo mara dunida. shirkan ayaa guud ahaan soconaya muddo 2 toddobaad ah, waxaa lagu raadinayaa xal caalami ah oo wax ka qabta isbedelka cimilada. daawadayaal, intaas waxaa ku idil war wixii dalka iyo dibadda caawa naga soo gaadhin. warka caawa waxaa si wada jira idinku akhrinaya anigoo ah Maka Cabdi iyo Khadar Cabdilaahi. intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono, nabadgelyo iyo amaan Allah.